daawadayaal qaybtii shanaad ee barnaamijkeennii aan kaga hadlaynay buuggii magaciisu ahaa aqoon darro waa u nacab jacayl buuggaasi sidii hore baan ku sheegnay waxaa qoray ilaahay ha u naxariistee faarax maxamed jaamac cawl waxa barnaamijkan aanu u bixinay dhegtaadu ka war dheer anagoo doonayna inaanu gaarsiino dadweynaha Soomaaliyeed meel kastaba oo ay joogaan ee aan iyagu fursad u helin in buuggaasi akhriyaan in markaasi halkan ay kala socdaan isagoo musalsal ah ama isagoo xiriirsan waxa ay maraynay qaybtii ugu dambeysay ee afraad gabaygii cawrala walaalkeed uu markaasi ku canaanayay cawrala ee uu ku sheegayay in iyadu ay badda gashay oo ay ninka doonatay waxa halkii nooga sii amba qaadaya oo aan ku wareejin doonaa xasan hurusi aad iyo aad baa u mahadsantahay cali salaamu calaykum intayna dhegaysanaysa we reel back little bit in yar baan dib u dhaqaaqaynaa si aan uga soo dhaqaaqno halkii aynu maalintii hore maraynay dalmar oo ahaa cawrale walaalkeed oo ka qayb galay canaantii qoysku ay u soo jeedinayeen cawrala oo le cawrala baraay cali badmaax calan laguu saariye cayaar baa laguu tumi lahaa cisiyo maamuus cureejaa laguu dhigi lahaa kun iyo cayn cayn cood baa laguu dhiqi lahaa maca dilaateen wuxuu kaaga cararaaba waa cabashadaadii cawadaada eed waa adigii been cawaasaday cawralo oo hadalladaasi damqayaan una qabtay inuu dalmar waalidka u dhaamo adliis yahay nin dhallinyara oo wax la fahmi kara ayaa beer la xawsanaysa dalmar oo eraye yar oo gabaygeeda ka mida ay ugu jawaabayso anigoon wada koobayn ayaan ka soo qaadanayaa cawrale waxay leedahay madow baa walaalow inaad igu dagaashaan guur aanan doonayn duunyo layga doortaa urug aan dadooda waa doog jacaylo waa dab iyo naaro waa danab sidiiso waa walax dadyahano ma aroos daduucaan dullinimo u yeelaa mise daadi qaadiya iyo duurgal baan ahaadaa dugaaggaa habqamaiyo deeradan la derisaa ma duulaaya mariskaan idaadihii idhaahdaa diirad buu wataayo dalkuu waaye tegay baan ii dawari idhaahdaa daa'imow ilaahow adaa daa'imaayee intaan dunida maanta ah dabiibkay na kulansii halkaa marka ay cawrali sidaa jawaabtaas ay dalmar siiso waxa aynu tegaynaa hawshii kale oo iyaduna dhinaca ka soconaysay iyo abaabulkii lagaga jiray dariiqo iyo taleex waxaa laga soo daadihinayaa guutadii loogu magacdaray weerarkii badda cas waxaa loo qaybinayaa 3 madax oo 3 abbaanduule kala wataan korna guddoon iyo talis midaysan kale 3daa guuto waxaa la yidhaahdaa oo loogu magacdaray maaraweyn waxa ay ka degaysaa waddada tabca waxa ay beegaysaa inay qabsato xeebaha xiis maydh iyo conqor guutada labaad oo dhinaca kaleeta ee baal jirtaana waxay ka degaysaa waddada geeldoora waxaa loogu talagalay inay guutadaasi qabato laasqoray ceelaayo laasmacaan durduri iyo xeebaha noocaasa guutadaana waxaa loogu magac yeelay indha badan guuto 3aad baa jirta oo labada ciidan dhexdooda ka degaysa oo toga jiidaliyeed kor uga baxaysa waddada ilgarad iska shubaysa buuraleyda ku baahaysa ilaahay xeebu degaan guutadaana waxaa la yidhaha garba siman nasiib darro cali wuxuu noqday guutadii ka degtay geeldoora oo bari martay haddii daraawiishtii ka soo baxday tabca ay xiis soo gaadheen markii ay magaalada dhinaca ka soo galeen oo fardaha iyo ragga la arkay cawrala iyo saluugla maraday dhexda ku xidheen dagaalkay ka qayb galeen ciidankii soconaya daraawiisheed bay dagaalka kala qayb galeen iyada oo 2 xaaloba ay isugu xidhnaayeen cawrala oo mide ay tahay iyadoo dareen qabtay inay daraawiishtu tahay gobonnimo u dirir dadka Soomaaliyeed ciskiisa sharafkiisa gobonnimadiisa iyo diintiisa ilaalinaya oo hebednimo iyo udulow gubaysi diiday arrintaa iyadoo caloosha ku haysatay tan u labaynaysina ay ahayd inay cali ka dhex baadho ragga meesha maraya haddii dagaalkii xeebaha la qabsaday
ujeedadiisii labaad oo dagaalka guutadaasi hoosta uga xariiqnayd oo ahayd marka xeebaha la qabto doonyahana gacan lagu dhigo in ciidankaa la gudbiyo doonye lagu qaado calina abaanduulka qaato buurta jabalu shamis goor habeen labaadka laga dejiyo arooriyada hore dhinaceeda qorax ka soo baxa laga weeraro xeryaha ingiriiska ka soo duulayay cadan oo halkaa lagu tirtiro fadhiisimadiisa wajigii labaad ee duulaanku waa fashili doonaa oo waxa fashilin doona dadkii xeebaha deganaa oo doonyihii markii dhulka lagaga adkaaday iyo beriga doonyihii la baxsaday oo u qayla dhaamiyey ingiriiskii deganaa berbera iyo cadan hase yeeshee xeebaha maakhir intooda badan gacanta lagu qabta maalin labaadii iyaga oo daraawiishtu u dabaaldegaya guushii ay heleen welina cawrale aanay wax wara cali ka helin ayaa nin darwiishi goorfiidnimo hore ah isagoo soconaya iyada iyo saluugle ugu yimi gurigii cawrale iyo qoyskoodu deganaayeen wuxuu weydiiyey yaa ii tilmaami kara walaalayaal guriga cawrala bare waa loo jawaabay oo cawrala u jawaabtoo tiri maxaad ka doonaysay waa lagu tilmaamiye fariin baan sidaa ee daraawiish iyo talex cidima kaa jirtay markaasay waxay tidhi waa layga jiraaye warka ii boobsii waagaas wuxuu ku yidhi cali wuxuu raacay guutadii dhinaca beri ka degtay oo xeebaha laasqoraya dhinaca qabanaysa oo geeldoore ka degtay fariina waa ii soo kaa faray wuxuu kaaga mahadnaqay warqadii aad soo dirtay waxa uu sheegay inuu waagii la guulaysto oo halganka lagu jiraa dhammaado uu ku iman doono wax intaa ka badan darwiish ma ku soo faray cali bay tiri wuxuu yidhi ma waxaad ahayd inantii warqadda usoo dirtay soo adigu miihid waxay ku tiri warqadda xogteeda maxaa ku ogeysiiyey wuxuu yidhi taa ma cid dariiqa joogta oo aan kor iyo hoosba ugu xifaaltamin baa jooga soo warqaddii warkeedu dunida saameeyey maaha arrinta awal walbay ka yara qaadayo waana sida ay u malayn doontahay waxay u qaadatay arrinta cali halkaa looga duway inay tahay shirqool aan lala jeclaysanin inuu cali xaggan ku soo hormaro halkaa markay marayso warwarkeedaana qabto laba habeenne ka soo wareegtay ayaa bile oo soconaya ayaa mar labaad soo noqday oo gurigii cawrale iyo yimi goorfiida habeenkan war dhiilale buu sidaa cawrala ayuu wuxuu ku yidhi cali waxaa lagu dilay allaha u naxariistee goobta la yidhaha guri faras oo buuraha calmadow ah iyaga oo dagaalamaya isaga iyo guutadiisii ayaa niman raacda reebi markii ay colkii hor fadhiyey kiciyeen xagga dambe ka gaadeen calina halkaasaa lagu dilay oo uu janno u kacay allaha u naxariistee cawrale fadhigay ka boodi madaxay gacmaha saartay baroor bay bilowday warka ma la hubaa warka ma la hubaa bay ku celcelisay loo noqon maayo ayuu yidhi bilowba ayay ayaa markiiba yeedhay haddii ay warkii sidaa arrinkii halkaa maray waxaa dhacday in hooyadeed hayn weyday baroorteeda saluugloos dhinac taagan baa doonaysa inay aamusiiso oo lahayd cawralaay baroorta inaga daa calafkay go'yey cali waayayey oo anigaa cidlada caawadan fadhiya cishqigii ehelay la caaraan caree calafkay go'yey cali waayayey oo caligaan jeclaa u calaacalee anoo ciid galaa caynkan iiga roon calafkay go'yey cali waayayey oo cadowgii helaaciil igu hayee calafkay go'yey cali waayayey eriyada iyadoo ku muusanaamaysa ayaa hooyadeed intay saysan weydoo kor u qaylisay waxay tihi nayaahe cawadaranta gurigayga kala bax qaylada iyo muusanowga meel daran iyo reeramaskood ilaahay kuu kaxayey cawrala dabaddaa la dhigay qoyskiina saasay dabadda ugu saareen saluuglo oo saaxiib aad iyo aad u wanaagsana ayaa ku lamaan dabadday u kaxaysay cawralay aamus gurigaygii aan ku geeyo ayay ku tiri gurigiinni haygeyne halkii burciidda ahaydaynu fadhiisan jiray igey bay ku tiri halkaa markay geysay oo ay iska oohin dhammaysatay ayaa saluuglina waa dhinac fadhida markan waxay leedahay laye cali baa geeriyooday oo go'ay laye goroday ka gooyeen laye geesigii godka u hoyey laye guudmana ayaa la dhigoo
laye gorgorkiiyo haadkaagigayey laye gaaladii ayaa gambashay isagoo galow xamara ku gaardiyayoo guutadii heeganayd guubaabinaya laye gadaal bay ka gaadeen mar hadduu go'ay geesigii maax goorta dheer anigaan nolol ku gaadhayna allaylehe gacal waaye aan go'o markay baddu guuxday gugii tegey daruur gudgudane gab soo tidhi cirkiina guguc iyo hilaac galay mawjada gudban oo garaarani doonidii soo galeen gol iyo hoos oo go'aydu yeedhay gooyahaygii gargaarkuu i gargaaray anoon go'i lahaa i garab galay gelindhexaadkii iyo guudkuu igu qaaday baan gocan abaalkuu ii galay anigaan gudin godolna haasaawin ayuu go'ay allaylehe gacal waaye aan go'o markuu gugudo oo geelu ramag yahay galool ubax lahaan lahaageeyo garoorka ku sii ganuun culan guur iyo waxaan lahaa aroos gala guri aan ila xidhaan lahaageeyo gogosha u dhig lahaa gurada hore wayey gaaladeer hadmaanganiyo wayey godobtay hadmaan gudanoo gaydhaan qabo goormaan ka gaylami abaalkuu ii galay anigaan gudin godolla haasaawin ayuu go'ay allaylehe gacal waaye aan go'o go'aya jacaylkaygii geeriyo oo garka iyo wadnahaa i kala go'an ma goob leeleel baan gundaha dhigay dar aan igayeen u gacangalay guuldarra ku mutaystay geelbadanoo gudnimaa iiga roon gedanaan ahay geelbadane waa odayga xigsiisanka loo siinayo oo geelbadane odayga da'da oo da'da ah oo walaasheed hore uga geeriyootay intaasi markay yeedhay saluuglaa u caqli celinaysa waxay leedahay goortu waa goor dambe geydhaha iyo dabaysha iyo dhaxanta aynu fadhino oo aan ku raagnay aan iskaga hoyanno oo ka tagno waxay ku tidhi waan xumadaysanahay waynuba tegi doonaaye bal intaad magaalada ku noqoto koob biyo ah oo qabow ii raadi saluugli dalabkaa way ka yeesha hadday wax yar ka sii maqnayd ayaa buur ka sarraysa wax ka qayliyeen jin iyo insi wuxuu yahay aan la garanayn waxaasi wuxuu yidhi cawralaay ma geeriyoodo nin geesii manuu go'o haddii uu gobdoon yahay waa gobonnimo doon oo gumaystiyo gaala weetayn cawralaay ma geeriyoodo nin geesii geyigiisa xurnimo u goobaaya gardarrada ka diidaya goborrey cawralaay ma geeriyo